waxaan cadeynaynaa inaanan marnaba raalli ka ahayn kana ahaan doonin in muxuu ahaa dalkayaga iyo dadkayaga ictiraaf beenbeena la yidhaahdo waana la ictiraafay ictiraafka adduunyadu dariiq buu maraa laakiin sidii telefoon to telefoon in la yidhaahdo waan ku aqoonsaday madaxweyne anna waan ku aqoonsaday dadka yaan la maran habaabin ictiraaf maaha waa ciqaab ninka yuhuud dalbaday ilaahay intuu goor ee quraanka ku sheegay waad ogtihiin ninka yuhuud leh muxuu ahaa way ictiraafayaan shalay ahayd labada shay Soomaalidu naxbaayeen waxay ahayd yuhuud iyo amxaar labadii shalay markii laga riday muxuu ahaa MOU-gii xaaraanta ahaa maantana meeshii adduunka oo dhan state of terrorist baa la yiraahdaa waxa ay dadkii walaalaha muslimka ee Falastiin ku sameysay baad ogtihiin waxaan u cadeynaynaa ummadda Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa oo u sheegaynaa inaanay ku katoobin soo dhaweynin wuxuu ahaa ixtiraafka beenta mushkiladii adduunyada la soo raray oo dinkana la soo raray waxaad ku caanamaasheen oo aad ku jirteen waxay ahayd waxayna dhexgelaynin ishaysadka caalamka iyo adduunyada dhibaatooyinka ka jira dhibaatadii adduunka ka jirtay baa dadkiin loo soo raray idinkoo abaaro iyo rafaad idin haystaan ayaa waxaan ilii keenay mushkiladii caalamka kama bixi kartaan ka digtoonaada muxuu ahaa iska qabta annaguna waxaan cod dheer iyo cod gaabanba ku leenahay ma aqbalayno wax la yiraahdo ictiraafna ma jiro waa ciqaab in la soo ka digtoonaada waa mahadsantahay wassalaamu calaykum